رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. waxaa laga wariyey ibnu cumar waa cabdullaahi ibnu cumare asaga iyo aabbihii baraalle allaha ka ahaadee inuu yidhi wuxuu rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama sakaatulfitriga ka farad yeelay saac timir ah ama saac qamadi ah oo laga rabo addoonka iyo xorta labka iyo dhadiga kan yar iyo kan weyn ee muslimiinta ah wuxuuna amray in la baxsho intaan dadku salaada u soo bixin bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray oo isku raacay sakaatulfitrigu waa cibaado qaabkeeda sharci ahaan loo soo guuriyey oo aan la siyaadin karin lana nuqsaamin karin waxaa la waajibiyey ramadaantii sannadkii labaad ee hijriyada xikmadda looga dan leeyahayna waa in ay daahiriso qofka bixinaya cuntana u noqoto qofka baahan ee la siinayo waana alle u mahadcelin in uu soonkii qofka bixinaya u dhammeeyey inta la bixiyaa waa saac quutulyawmka dadka ee meesha la joogo ah saacuna waa labada sacab ee nin dhexdhexaad gacantiisu tahay afartood waxaa loola jeedaa afar laba sacab ah miisaan ahaanna waxaa lagu qiyaasay in ay tahay 2 kilogaram iyo bar meelahaas waxay ku waajibtaa qofka haysta wax ka badan quudka habeenkaas ee isaga iyo inta uu quudiyo waana in uu ka baxshaa intaas uu quudsho yar iyo weyn xor iyo addoon rag iyo dumar intaba ee nool marka qorraxdu dhacdo maalinta ramadaanta ugu dambaysa sakaatulfitriga waxaa la baxshaa ugu horrayn maalin ama 2 ka hor maalinta ciidda ugu dambaynna salaada ciidda ka hor waa in ay baxdaa waxaana ugu fiican in la bixiyo inta u dhaxaysa salaada subax iyo salaada ciidda ee maalinta ciidda qofkii la daahaa ilaa ciidda laga tukado weli waa in uu bixiyaa ibnu cabbaasna radiyallahu canhu wuxuu yidhi waxay noqonaysaa sadaqooyinka caadiga ah ka mid ah saddexda madhabadood ee shaaficiyada xambaliyada iyo maalikiyadu waxay qabaan in aan qiimo lagu bixin karin xanafiyaduse waxay qabtaa in lagu bixin karo waa loo diri karaa meesha baahida looga qabo waana loo wakiilan karaa qof kale haddii qiimaheeda la isku dardaro oo inta meesha looga baahan yahay la geeyo raashin loo bedelayo laguna bixinayo wakhtigeeda ah salaada ciidda ka hor waana arrin ajarkeeda siyaadada ah u leh ciddii u istaagta رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام